السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيكادان waxay ka bilaabatay sanadka markuu ahaa 1996 magaalada lagu magacaabo Badnaar ee dalka India. Nin lagu magacaabo jiray Anand Kumar ee ku guuleystay bilada ninka ugu fiican ee xisaabta dalka India. Xafladda uu ku soo qayb galay nin wasiir ayaa yiri India oo in la tartantaa caalamka dadka ugu wax soo saarka badan, dadka ugu caqliga badan, dadka ugu cilmi badan. Sidoo kale wuxuu wasiirka dhawaajiyay in uu caawin doono dhammaan dhalinyarada kuwooda dadaalka muujiyo هبدو waxbarasho nimaado xafladda kadib Anand wuxuu soo aaday saaxiibtiisa Subriya wuxuuna u sheegay hadafkiisa inuu waxbarasho wato. Anand wuxuu aad u jeclaa maadada xisaabta wuxuuna u sheegay inuu Cambridge ka soo baran doono muran dheer kadib wuxuu ku yiri warqadan aan ku dhaafay ka akhriso. Maalin baa waxa dhacday Anand inuu soo aado library-ga si uu soo akhristo maadada xisaabta wuxuu arkay su'aal laga jawaab waayay kumanaan sano. wuxuu isku dayay inuu su'aasha ka jawaabo laakiin intuu ka jawaabo ka hor waxaa soo taqanqadiyay oo soo ciriyay ninka library-ga waardiyaha ka ahaa. haddaba midka waardiyaha kale ee naxariis badnaa wuxuu yiri Anand anaa ku caawinayo fadlan waxa samaysaa hawta xisaabta ka shaqeeyo ma ka shaqeyso basal address-ka ku siinayo address-ka ku dir. Anand markuu isku dayay inuu maalinta dambe xisaabta ka shaqeeyo waa kan Anand oo isku dayayo inuu ka shaqeeyo xisaabtii dhowr jeer isku day kadib ugu dambeyntii aan ugu guuleystay inuu jawaabta helo. Anand wuxuu soo cararay dhanka xafiiska basajada oo aabihii ka shaqeynayay wuxuuna ku yiri aabbo waxaan baahanahay in warqadan ii dirto oo dirta xafiiska Cambridge. aabihii wax lacag mu haynin si loo diro warqadaasna wuxuu aabihii ka codsaday asxaabtiisa in lacagtaas ku soo diro. wuxuu yiri madhow wiilkayga wuxuu noqon rabaa nin taajir in adduunka dhan ka yaabsado noqon rabaa sidateed hadday hal si caawiyo oo dambe waa la caabiyay warqadii waa la diray. markii la diray warqadii aabihii maalin ka mid aabihii ordaya ayaa guriga yimid isagoo faraxsan wuxuuna u sheegay inuu maanta u helay jawaabtii warqadii ay direen. wuxuuna u sheegay in wiilkiisa uu helay jaamacadda Cambridge. Anand waa kan isagoo aad u faraxsan gariiraya meel wax ka bilaaban garanaa yaaban ugu dambeyntii celebration gale wuxuu isku diyaarinaya Anand in uu aado dalka Ingiriiska oo uu ku soo barto maadada xisaabta. Anand wuxuu soo aaday ninkii maalinta ciirinaya ee waardiyaha library ka ahaa isagoo u faanaya in la soo guuleystay sidoo kale la soo qaatay oo madhow uu socdo dalka Ingiriiska. sidoo kale Anand wuxuu u mahadceliyay ninkii caawinaya oo address-ka siinaya si mataqaana uu guuleysto ugu dambeyn uu sheegay inuu guuleystay. Anand faraxsan waa kana familkiisa dhammaan wuxuu isku diyaarinayaan in aan anbabixiyaan oo already wax loo diyaariyay baasaboorkiisii fiisihiisii dhammaan inkastoo familkiisa ay lacag xooga haynin haddana waxay rabaan in wiilka diraan ugu dambeyn saaxiibtiisa Subriya waxay biraysaa aabaheed waxaan u sheegtay in wiilka madhow u socdo Cambridge. aabaheed wuxuu u sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarkiisa. jabba kii dambeeyay Anand ma aadi doonaa mise ma aadi doono. hadda waa kan Anand iyo aabihii waxay u socdaan dhanka wasiirkii maalintii bilan qaadaya inuu Anand uu caawin doono haddii uu baahdo garab. waa wasiirka siinaya bilada markuu guuleystay ninka u fiican xisaabta. Anand iyo aabihii waxay ka codsanayaan inay caawiyaan lacag yar ka dhiman oo wiilka uu dir lahayn Ingiriiska inay ka caawiyaan. haddaba muu caawin doonaa su'aasha meesha taalo. wasiirku wuxuu leeyahay dalka wasiirku dambeynta ku diiday wuxuuna yiri dalka idin baahan dalkiina jooga maxaad dal sheego ka doonaysiin inta wax ku barta inta wax ku dhamaysta. aabihii ku soo rijiyo ka tagay aabihii wax walba isku day inuu ku sameeyo xitaa wuxuu aaday bangiga si uu lacag u soo qaato waxaas oo dhan oo surto weysay oo aabihii hal bacaad ugu lisay noqotay. ugu dambeyn ciidan murug baa qabsatay an aabis u fikiray uu dhahay wiilkiisa ku dirta lacagna ma haysto ayuu magdam joog ka dhacay. odayga la soo carareen waa kana haween bar saq dhexe soo roob da'ayo musiigana xanuunsan yahay oo suuxsan yahay ay waxa ku soo ordeen baskiilki laakiin sabdar baskiilki uu ka jabay meel xaq bilaan garan darteedna Anand aabis uu geeriyooday xanuun badana. hadda waa kan wuxuu u sheegay Anand inuu Subriya wax ka qaban karin. wuxuu yiri aniga hadda noloshiisa baabaaday waxa uu ku qaban karo qof kale raaso fadlan iyo maangeli. maadaama odayga cid u shaqeynaya uu geeriyooday Anand wuxuu ku qasbanaaday inuu aabihii booska galo inuu wareejiyo rooti hooyadii guriga ku dubaysaa isagana wuu wareejinayaa banaanku soo wareejinayaa. ugu dambeyn Anand isagoo shaqadiisa ku jiro ayaa maalin gaari ku dhacay. gaariga ninkaas kale waxaa la yiraahdaa magaciisa laalsin ayaa yiri Anand waraadiga ku aqoonay wax kugu arkay cabaa buu fikir kadib Allah tan kortu yiri wuxuu dhahay adiga Soomaa wiilkaata ka hor ka shaqeynaya xisaabta lagu weerarsanaa. marka Anand ilaa hadda ma hadlin ka aamusay shaqadiisa iskaga jira kadib wuxuu niyo adiga tan shaqada ma aanu dhacday shaqada ku sinaya soo kordhay gaari saaran. Anand markuu u imaaday guriga u imaaday laalsin oo Subriya Anand ayaa u sheegay inuu leeyahay mujadka
ICT oo dhitaan ardayda u tajisan dalka India wuxuu yiri adiga waxa u baahanaa inay dhigto qaybta xisaabaadka maadaama ku fiican xisaabta wuxuu u ballan qaaday lacag ban siin doono ugu dambeyn anan shaqo ayuu helay raasina wuxuu bilaabay inuu xaysiin sameeyo una sheegay caalamka inuu hadda kadib u keenay macallin Anas Kumar kaasoo takhasus ku ah xisaabka arday badan ayaa galaaska imaadeen anana wuxuu bilaabay inuu waxbarashadii uu sii wado halka ardayda anan wuxuu sameyn jiray lacag badan uu sameyn jiray wuxuu soo iibsaday gaari wuxuu soo iibsaday mootooyin waa kan walaalkiis oo mootoska baashaalaya sidoo kale saxiibtiisana dib bay isku soo laabteen oo shaqaantii dib isku bilaabeen ugu dambeyn wiis wuxuu keenay naag shaqaale ah si ay mataqaana u nastay shaqada anan wuxuu soo iibsaday saacado qaali ah dahab iyo wax walba u baahnaa ugu dambeyn ana u kala kacday oo wuxuu noqday nin taajir ah habeenada ka mid ah anan xafladkii maadaay wax arkaa wiil banaanka la fadhiyo xisaab oo ka shaqeynaya wiilkii wala fariistay una caawiyay kadib uu ka tagay wuxuu soo raacay baaskiilka ninka wado waa wiilka aabihii wuxuu weydiiyey wiilka maxaa ku kalifay inuu banaanka fariisto wiilka aabihii ayaa ku jawaabay magaaladan India dadka taajiriinta kii ay wax barto kuwa faqiirinta waxbarasho xaq buu u balaha inay bartaan wuxuu la jeedaa dadka taajiriinta kaliya ayaa la ixtiraamaa oo waxbarashada la geeyaa laakiin kuwa faqiirinta fursad ay wax ku bartaan ma helaan maadaama iskuulada qaali laga dhigay oo waxbarashada ganacsi noqotay erigaasi saameyn ay ku yeelatay Anan Kumar wuxuu soo xistaa ereyada abiyu dhahay oo inkii qoraax haysto ayaa qadal ugu daraa oo maamaha Soomaaliyeed hadaba anan wuxuu soo xistaa abiiso dhahayo dadka faqiirinta waa inay helaan abiiso marba riis ahayd inuu dadka masaakiinta ay waxbarsan ayaan wuxuu go'aan gaaray inuu mataqaana u joojiyo waxbarashadii uu dhigay iskuulka qaaliga ahaa wuxuuna go'aansaday inuu furo iskuul si bilaash oo ardayda masaakiinta ugu dhigo kuwa faqiirinta ugu dambeyn saaxiibta eraas maqashay waxay tiri wariyaha hadda ku kala kacday haddaanu arrimaha dhamaysan oo isgursano maxaa noloshana ku soo laabanayso imugdigan soo wuxuu dhasay aniga ka tagay dhasay si inuu ogolaanayo ugu dambeyn wuxuu ka tagaysaa anan saaxiibtiisna ka tagto waxba inuu ma arkayo sababtoo wuxuu caawinayaa ilmo masaakiime ilmihii ay wax arkayaan xaysiinta Anan Kumar oo in waxbarasho free uu sameyn doono wiilashii wax walba soo raacayaan qaar xitaa wax soo raacayaan gaari qaar bad ku soo daadanayaan si u maadan meesha waxbarashada free lagu helayo ana wuxuu dooranayaa 30 arday oo fiican kuwaasoo uu isleeyahay waxa bar kartaa anan classku keenay kadibna ardayda waa kana wuxuu sharaxayaa ana ayaa u sheegay ardayda inay faskiya haystaan sidoo kale ka faa'iideystaan haddaba ereygii warbixintii waxay gaartay ninkii anan shaqaaleysiinay oo ahaa Laalsin wuxuuna yiri anan wuxuu furtay iskuul ardaydan waxay dhaheen hadduusan anan joogin iskuulka in ayagana ay wax baranaynin ee ka tagayaan iskuulka lacagtooda loo soo celiyo arrinkaas aad buu u xumaaday maamulaha iskuulka wuxuu soo aaday dhanka anan wuxuuna u sheegay anan inuu dib u laabto oo iskuulkiisa uu dib ugu laabto maadaama ardayda dhammaan ay ku xanaaqeen ayna dhaheen anan joogin iskuulkana ka laabanayaan wax baranaynin oo lacagtooda ceshanayaan haddaba Laalsin wuxuu ku qalqaalanaya inuu anan u laabto wuxuuna yiri ardayda masaakiimaha anaa macallin raadinayo oo wax baro adiga laakiin iskuulka ma wax u bar ardayda taajiriinta ay ku baahan haddaba anan ku diiday waa kan habeenada ka mid waxa dhacday in ardayda ay gaajada saxan waayeen ana ayaa imaaday wuxuu dhiri gaajada iyo jahliga daran wuxuu u sheegay mataqaan jahliga daran tahay in wax bartaan ardayda ku booriyay haddana waxa isku yimaadeen faamiladii waxayna leeyihiin ardayda waxay noo sheegeen in Anan Kumar iskuul ka tagay haddaba iskuulka Anan Kumar ka tagay anaga waan ka tagaynaa camal waxa u baahanaa macalinkaas inuu dib u soo laabto ninkan wuxuu yiri ana idin ballan qaadayo Anan Kumar inuu soo laabto arrinta xigtiisa wasiirka wuxuu isku dayayaa inuu la xiriiro kuwa tuuga si ay wacgu juglayaan Anan Kumar cagjulintaas wuxuu ma arkayo wuxuu si badan shaqadiisa anan oo dhowr jeer loo soo maleeyay in la dilo xitaa uu ku guuldareystay in dilaan dhowr jeer anan wuxuu ardayda wax bari jiray si mataqaana hab maskaxiyan wuxuu sheegi jiray xabaaraha tareenka uu ku socdo inay xisaabaan in kubadda darbada la tuuro xabaaraheeda ay ogaadaan ardayda wuxuu u fiin leer waxbarasho oo hab maskaxiyan ayuu ardayda u dhisay haddaba ardayda imtixaanka waa laga rabaa oo xabaaraha uu ku socdo tareenka wasiirka ayaa wuxuu amrayaa in leerka laga damiyo guriga anan wadameen anan leerka ay laga damiyay ardaydana waxay sameynayaan waxbarashadii uu baray anan inay mataqaan difacsan oo
inay koronto ka sameeyaan xaarka lo'da. haddaba maalin ana suuqa ayuu aaday wuxuuna doonaa buug si uu soo iibiyo ardayda hal buug oo fiican uu soo iibinayo xisaabaadka iyo dhanka maskaxiyan wax walba fiican aanan wax walba la dagaalay ardayda hab maskaxiyan uu dhisay xitaa waxay sameeyeen project ay iska u sameeyeen laakiin hal wax uu ka adkaan waanan oo baahida aad ugu badatay maadaama ardayda rashinkooda jiifkooda wax walba free ahayaan oo isaga bixinayay wuxuu u imaaday wasiirka waxbarashada u imaaday wuxuuna ku yiri waxaan u baahanahay inay caabisaan oo aad iga dhistaan dhanka lacagta wasiirka uu diiday kadib ana wuxuu ku qasbanaaday inuu u imaado laalsiin oo ninku ku stiga shaqada laalsiin wuxuu dhahayaa oo ku ballan qaaday inuu ka caawiyo laakiin waa hal shuruud waxa weeyaan uu leeyahay in mataqaan ardaydaada iyo ardaydii tartan ay galaan haddii ardaydaada guuleystaan wuxuu yiri waxaan ku ballan qaadaa 3 bilood oo free cunto aan siiyo jifkooda aan ballan qaado haddii laakiin ardaydaada ay la guuldareysto in mataqaan adiga dib u soo laabanayso iskuulka aad ka shaqeynaysi ardaydaasna afsaxayso haddaba ugu dambeyn ana wuu ogolaaday waa kan maanta waxa weeyaan sameynaya imtixaanka haddaba imtixaankii la sameeyay ardaydii kadibna waxay sugaan natiijada wasiirka waxbarashada ayaa lagu casuumay inuu natiijada sheego laakiin nasiib darro gaari waxa ka soo baxday ana saaxiibtiisa hore XTC aad ugu xumaaday qalbiga ka bash dhahay laakiin oo qof marro ilaahu siin hadaf la waaye wiil dhaha fuko ayaa wuxuu la cararayaa lacagtii meesha taale una cararaya ninka wuxuu sheegay wasiirka jawaabta oo in ardayda iskuulka ITC ay heleen konton ardayda aanan ku maaran ay heleen 49.8 taasatidna aanan ku maar wala guuleystay hadda wuxuu ku qasban yahay inuu iskuulka hor dib u laabto laakiin nasiib darro waxaa dhacday nin goobta fadhiya wuxuu dhahayaa waxaan qabaa su'aal meesha heshiiska lagu galay ayaan rabaa warqadda hala keeno warqadda heshiiska hala keeno ninka wuxuu dhahayaa waxa miyaa marka warqadda dhaha wasiirka ma hayo warqadda ana saaxiibtiis gacalsiisa Subriya ayaa mar rab qarsabo oo haday kadib warqad waa raadinaa waqtigan lawana Subriya wuxuu ogaanaa anan in taqaan ka dameyso Subriya in warqad ay qarsay kadib wuxuu leeyahay adig tug baa tahay ninka ugu qaalan wuxuu leeyahay tug baa tahay warqad soo bixi aan wuxuu leeyahay hadii warqad lawaayo ana heshiiskan ka wuxuu leeyahay heshiiska uu ku jira waxas baan waliyo kustaga kadib ana xumaanaya iskuulkiisa ardayda wuxuu dinaya maxaa idin ku dhacay ana wax walba idin bare sabab u dhacday ma taqaanaan in guulisto maxay ceebeysan ardayda waxay dhahayaan anaga wax nagu dilay environmental nagu dilay darbaan nagu dilay caraf baan nagu dilay dadkii anaga u raayay dadka dharkooda carfayeen timahooda way galamsanayeen anaga timaheena waxa waa rifrif ahaayeen qaar waxay dhahayan xataa anaga dharka axireen dharkooda isku mid ma ahayn saddeed ayaa mataqaan ardayda qaar u carareen ee meeshooda u laabteen mid kamid ah ardayda ayaa wuxuu yiri xitaa ardaydaas Englishka ay isfacaan u yaqaaneen anaga Englishka ma naqaano kadib ana wuu fikirayaa wuxuu leeyahay haddaba sidii ardayda u dhisay Englishka kadib wuxuu ogaanayaa in kalsoonida uu dhisan karto haddaba ardayda wuxuu sheegayaa in Brito iskuul u jirin ee fasax yahayn haddaba wuxuu sheegayaa in bari ay tahay holiday saasateedna stage-ka waa inay tagaan oo English ku hadlaan qofka hadduu English ku hadli waayo stage-ka Brito in gurigiisa ku laaban doono waa kan stage-ka ardayda waxay ku qasban yihiin inay ku hadlaan Englishka marka uu horeyso lagu qosolay maadaama English fiican u hadlaynin kadib waxay baan English ku heesaan dhammaan ardayda ku qoslaysi kadib waxay bilaabeen inay mataqaana u sibciyaan inay mataqaana ay la heesaan inay u kaala u xiraan inay mataqaana soo dhibaystaan waa ardayda taajirintee marka aanan ugu dambeyntii wuxuu guulisay in ardayda English kalsoonida u saxo arrinkaasi waxaa lagu daabacay journalada waxaana ka xanaaqay wasiirka intaan idin sheego waa ninka iska leh iskuulka almaha taajirinta dhitaan wuxuu u imaad maamulaha wuxuu leeyahay sabab ay ku dhacday sabab ardaydeeda mataqaana loo soo dhigi waay journalka ardayda faqiiratan loo soo dhigaya ninkaas loo amaanaya wuxuu leeyahay hadii ninkaas waa in la dilaa ana Kumar walaalkiis arrinka soo maqlay wuxuu la wadaagaya wuxuu leeyahay walaal in lagu dilaa maqlay fadlan biriya ka soo dhaafbixin ana ku diiday wuxuu leeyahay walaal waqti ilaahay ii qoray ayaan dhimanayaa وصبح أنا ولكن سيسكو مهرة حوليها وحتجا حفيزك سيشينك وحوليها ولكن الدرب فضلا على عاوي وحولي ولكن من الدري هدو ولكن ممكن الدري كتب إيه مولي وكستجا أنا ولكن عمانة مشت وكذا وحنا ليها هي عبانة هوب مالك بدأ هبينك سلابينك وعي سيقو أنا سعودة أيوة حالك أقول نمتو أمانة كتب نحكو أنا بستولد على شغل فراير kadib aan markuu dhaco waxay isku dayay inay mataqaana aan madaxiisa u dhigaan tareenka si ay mataqaana tareenka uu diro laakiin waxa soo gaaraya walaalkiis oo wato qoriga uu soo iibsaday wuxuu leeyahay walaalkiis daaya kadibna ka carayaan wuxuu keenayaa isbitaalka ardayda oo kuna ayagoo dhaban nijibsan
waxaan loo sheegayaa in hadda aan fiican yahay sidoo kale waxay maqlayaan warbixin ku saabsan in aan soo weerar rabo mar kale oo la dil rabo haddaba ardayda ay wanaagsan waa kuwana oo ka fikiraya sida macallinkooda u badbaadin lahayn ardayda dhammaan wuxuu ku tusay in macallinkooda ay badbaadsadaan sidoo kale wuxuu soo barayay inay mataqaanaa ku badbaadiyaan waa kan yarkan oo iska dhigaya waardiye ayaa wuxuu ku soo arkay tuugada oo soo socoto waxaan u sheegaya inay soo socdaan tuugada waxayna isku dayayaan inay macallinkooda qariyaan waxayna ku qaranayaan qayb ka mid ah stoorka isbitaalka tuugadii waa ku soo dhow yihiin waxay bilaabaan ardayda inay difaacaan macallinkooda cilmiga uu soo baranay ay ku difaacaan tusaale sida loo sameeyo reflection zone fake ugu dambeyn ardaydana waxay ku sameynayaan ku tuugada reflection fake voice ay ku sameynayaan ayagoo dhan kala taagan ayaa mataqaanaa qaadanayaan tuugadana oo weerarayaan kadibna wuxuu kor u soo xiraya albaabka ay ku soo cararayaan hadda aana wuxuu ku jiraa qaybta qaliinka isbitaalka welina xaaladiisa cuntaaya kadibna haddana wuxuu u sharaxaya cashirka sida loo tuuro qaansada kadibna oo lagu dilo dadka haddana iyagana ugu dambeyn waa sameeyeen ugu dambeyn ardaydii tuugada ku guuleysteen oo kulli dhammaan walaayeen hadda waxay soo baxeen banaanka si ay u sameeyaan imtixaanka waxay sameeyeen imtixaanka ardayda u fariisteen dhammaantood macalinkoodana wuu xanuunsan yahay haddaba si macalinka guushiisa ay u rumeeyaan waa inay imtixaan ku guuleystaan ugu dambeyn maanta waxaa la gaaray maalintii imtixaanka lasoo dejin lahaa waa lasoo dejiyey imtixaanka dhammaan wuxuu leeyahay niyeysta halkaa mataqaana mustaqbal gaaraysiin intay warqadda dejin ka hor arday dhammaan niyeysanayaan hadda waxaa lasoo dejiyey warqadda imtixaanka ugu dambeeyey ardayda dhammaan waxay firsanayaan nin walbaba booska uu keenay iyo kaalintuu galay aanan waxaa loo sheegayaa in soddonka ardayba ee dhammaantood ay guuleysteen ee baaseen aanan waa kana farxad uu sicilin leeyahay wuxuuna ku faraxsan yahay inuu riis ka rabiyey oo inuu wax baro si bilaash u baro 30 arday dheeldheel ma aha inaan 30 ciyaal shiifkood cunadooda madax saarto waa kana ardaydii oo la dabaaldegaya macalinkooda haddaba sheekadan aan sheekay waxa weeyaan sheeko dhab oo dhacday waxay ka dhacday dalka India magaalada Badnar 1996 haddaba ninkan iskuulkiisa ilaa hadda uu jiraa waqti xaadirkan India wakiilisa iskuulkan waxa loo macdaray Anand Kumar dowladda India ay xoog qastay Anand Kumar inuu yahay shakhsi ugu fiican ee dalka India waxayna abaalmarin siiyeen sarta markuu ahaa 2016 Anand Kumar ayaa ilaa imika ku sugan India iskuulkiisana waxaa si barasho barta dhammaan masaakiinta Anand Kumar